muuqaalkana maantay waxaan kula wadaagayaa macluumaad ku saabsan haddii aad tahay qof haysta baasaboorka qaxootiga UK ama travel documentiga UK oo aad rabi lahayd ama jeclaan lahayd inaad u safartid Yurub qaybo kamid ah. Haddaba waxaan kula wadaagayaa wadamada aad u safri kartid si bilaa fiisa. Sidoo kale waxaan kula wadaagayaa muuqaalkan xambaarsan yahay dhammaan steps ama tillaabooyinka aad maraysid iyo wax kastoo maaragtay aad wajahaysid haddii noqoto inaad safartid. intaan muuqaalka u guda gelin haddii aan nagu cusubtahay waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biirtid. Fadlan waxaan kaa codsanaa subscribe inaad nagu saacidid. Sidoo kale meeshaan waxaan kaga hadalnaa vlogska iyo ka faa'iidaysiga teknolojiyadda labada haddaa xiisaysid inaad nagu soo biidid baa kaa rajeynaa. Fadlan muuqaalka like noo saar. haddaan muuqaalka sii guda galo aan ka bilaabo travel documentiga UK ama baasaboorka qaxootiga UK waxa uu qaybsamaa laba qaybood. midka koowaad waxaa la yiraahdaa Geneva Convention baa la yiraahdaa saaxiibayaal, kalarkiisana waa blue, halka midka labaadna la yiraahdo UN Convention kalarkiisana waa guduud. magacyadan aan idiin sheegay waxay ka qorayeen jaldigiisa kore, halkaas aad ka dhugan kartid oo ka fiirin kartid oo aad ka hubin kartid. marka laga hadlayo awoodooda ku safrida labadooda waa isku mid intii ogaalkayga waxaad ku kala gedisiin oo weyn oo ka dhex muuqda ma jiraan. haddii aan isla fiirino dhanka ku safrida Yurub gudaheeda markii la joogo wadamada qaarkood waxay ka rabaan fiise, halka wadamada qaarkoodna aad ku tagi kartid si bilaa fiisa aysan kaga baahnayn wax fiisa ah. wadamada aan fiisaha kaa rabin ama aad ku tagi kartid si fiisa la'aan waxa ugu horeeya Yurub markii la joogo Jarmalka, halkaas oo aniguba aan ku tagay kuna safray. sidoo kale waxaa ku tagi kartaa Holland ama Netherlands ka hadba u taqaanid, asna waa sidoo kale waxaa ku tagi kartaa si fiisa la'aan. sidoo kale Albania waa ku tagi kartaa, inkastoo Albania midowga Yurub isku jira laakiinse wuxuu ka mid yahay qaaradda Yurub, asna waa ku tagi kartaa. saddexda wadan aan idiin soo sheegay waa saddexda wadan ilaa hadda si rasmi 100% aan u hubo in lagu tagi karo si fiisa la'aan. waxaan anaa ku tagay, waxaan dad ku tagay baa ii sheegay oo qaarkood la kulmay. waxa kale oo aan isku dayay internet ka baaro wadamada la booqan karo Yurub gudaheeda markii la joogo si fiisa la'aan. wuxuu ii soo saaray internetka wadamada idiin sheegay iyo kuwa kale oo aan ka dhexosi karo sida Talyaaniga iyo Switzerland. waxaan jeclahay saaxiibayaal muuqaalka intaan u gudbin inaan la wadaago bangi aan isticmaalo. bangiga magaciisa waxa la yiraahdaa Wise. runtii aad iyo aad baa uga helay adoo wax weeye wadan jooga wadan kale akoon bangi ka siinaya. sidoo kale wuxuu ku fiican yahay haddii aad rabtid inaad meel kale aado kale ma u baahnaa lacag sarifta automatically asaa ku sarifaya, weliba qiimo hoose buu kugu sarifaya oo kale. haddaa rabtid inaad UK ka baxdo oo Yurub aado kale ma u baahnaa lacag sarifta automatically asaa ku sarifaya. haddaa Yurub joogto xataa laga yaabo in Scandinavian-ka sida Sweden oo kale lacagta koronta asaa ku sarifaya. haddaa meel kale joogto laga yaabo xataa East African aad Kenya oo kale automatically ma u baahnaa lacag sarifta asaa ku sarifaya, wuxuu kugu sarifaya Kenyan shilling. waxaa intaasii dheer haddaa rabtid inaad akoon wadan kale ka furatid wax hal daqiiqo yar buu kugu furayaa. linkiga bangiga saaxiibayaal waxaan dhigayaa muuqaalka description-ka, sidoo kale qaybta comment-ga aan dhigayaa, halkaas ka raaci kartaa. haddaan muuqaalkan ku soo laabno inta kaga soo gudubno baasaboorka noocyadiisa wadamada loo safri karo. haddii aan isla fiirino inta la ogol yahay in la joogo wadamadaas aad ku tagaysid fiisa la'aanta, waxaa la ogol yahay inaad joogtid 9 beri ama 3 bilood ka badan lama ogola. waxaa xusuud mudan saaxiibayaal marka wadamada aad galaysid in baasaboorka lagu dhufanayo entry, taasoo wax way cadeynaysa waqtiga aad soo gashay. hadhow marka soo baxdina waxa lagu dhufanaya exit, taasoo cadeynaysa maarta ayadan inaad wadanka soo gashay kana baxday. intaa waxaa sii dheer UK marka ka baxaysid wax migration ma marisid, laakiin marka soo galaysid migration ka maraysaa baasaboorkan shaabad baa lagu dhufanaya, taasoo muujinaysa wadanka inaad ka baxday soo gashay. ugu dambeyntii waxaan soo gaaray dhamaadka muuqaalkeena saaxiibayaal. waxaan leenahay channel Telegram kaasoo bil walba aan soo dhigno book Soomaali ah oo free ah. haddii aad tahay dadka wax akhriska jecel, channelkan Telegram waa ku soo biiri kartaa qaybta comment-ga iyo qaybta description-ka inta waa dhigaya, halkaas ka soo raaci kartaa.